السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبada ku xiran channelka Jabani bas meel walba joogtaan iyo walba si kastoo noo daawanaysaanba ku soo dhawaada muuqaal cusub. Muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay sidee ayaad mobile wax ugu jarjari kartaa. Waa wada ognahay Soomaalida oo dhan waxay jecel yihiin inay YouTube samaystaan. Haddana dhibaato waxay ka haysataa dhanka editingka. Dad badan ba haddana se aqoonin sida software wax lagu jarjaro. Maanta waxaan ku hayaa qaab fudud oo mobile-kaaga, iPhone-kaaga ama Android-kaaga aad wax ugu jarjari kartid. Haddaba maxaad wax ku jarjaraysaa? Laptop haysan maxaad wax ku jarjaraysaa? Haddaba waxaan ku hayaa fursad yar aad ugu jarjari kartid mobile-kaaga. Ugu horreyn waxaad soo degsanaysaa KineMaster. KineMaster waxaad kala soo degaysaa App Store-ka ama Play Store-kaba. labada meel Android ama iPhone. So marka KineMaster inta soo degsanin wuxuu kaaga baahan yahay inaad iibsatid ama inaad hacking garaysatid ama inaadan iibsanin aad soo degsatid laakiinse magaca kor kaaga reebaya. So marka magaca markuu kor kaaga reebayo kor geeskas oo ku soo qorayo KineMaster Professional ma. Haddaba maanta waxaan rabnaa casharkaas inaan sharaxno. Waxaan rajeynayaa dhammaan Soomaalida ku xiran channelkiga inay ka faa'iideysan doonto. Waa inta daneynaysa ama aanan aqoonin sida mobile wax loogu jarjaro. La socod wanaagsan. soo naqad wanaagsan. Soo marka hadda KineMaster aan guda gali doonaa gorayn. soo marka anigu ugu jira soo marka meeshan 16.9 ay qoran tahay baan rabnaa in editing ku sameeyno ama meesha ayaan galeena. soo marka hadda gudaha aan gali doonaa waxaan soo bixinayaa muuqaalka aan rabo in aan jarjaro. soo marka hadda gorayn waxaad soo qaadanaysaa madowga ama black background qof bas u yaqaan. soo marka madowga waxa laga rabaa inaad jiidid ma garatay ilaa inta adiga aad rabtid muuqaalkaagi inuu kuga ekaado. Tusaale hadda 10 daqiiqo muuqaal aad jarjaraysid waa inaad gaarsiisaa 10 daqiiqo si macnaha madowgaas waxaad dul saaraysaa muuqaalkaagi. laakiin markii muuqaalkaada oo kaliya la meesha yaalo soo marka haddii inaad jarjartaa rabtid muuqaalka la dul saartid uu kugu dhib badnaanaya. horta ugu horeyn waa inaad soo qaadataa madow ama black background qof bas u yaqaan. soo marka duwan jiidaya ilaa iyo meesha ugu dambeysan geenaya. soo marka waxaan rajeynayaa inaad fahmi doontaan. soo dabcan saasan sameyn doonaa socod wanaagsan. haddii ay tahay markii kugu horeeya soo booqatid meeshan waxaa ka codsanaynaa subscribe inaad noo saartid. waxaan rajeynaya insha Allah mar walba wax aad ka faa'iidi doontaa in soo geli doonaa haddii Allah subxaanahu wa ta'ala karaan laqdo. KineMaster markaa dhameynana Final Cut Pro aan ku xijin doonaa sida ugu fudud ama tutorial wax ka sameyn doonaa qaabka wax loo edit karay. soo marka hadda meeshan aad tabtay audio ku qoran tahay cod ayaan duubayaa. soo marka tijaabada codka waaye. soo marka hadda codkaygii inaa maqlaysiin in kala ma garanay kana ku duubay haday laakiin cod marka aad duubayso simple. soo marka hadda waan tirtiray. marka waxa la rabaa mar walba markii wax lagu bilaabo in aad fahantid. hadda waxaan soo galay layer meel ay qoran tahay waxaan soo qaadanayaa muuqaal as leeyahay uu habboon yahay ama meesha uu ku habboon yahay soo qaadanayaa. soo marka wax xulanay igraal naqdada idinku dheeraaday ama idinku daahiyay. soo marka waxaan raadinayaa muuqaal ku habboon meeshan aan rabo in aan maaragtay soo galsho. soo marka waxa igu keedsan madow badan ku keedsan ama sawir madow ku keedsan ama sawir green background. sidoo kale waxa igu jiro sawir private ah ama video private ah marka ma rabo inaan idin la wadaago laakiin waxaan rajeynayaa insha Allah muuqaalkan soo qaadanayaa. soo marka muuqaalkan waxa weeyaan muuqaalan hadda kor YouTube-kiga soo galshay wasarabna tutorial ka bixino. ugu horeyn waxaad sameynaysaa waxaad la ekisiinaysaa background-ka meesha ay ku qoran tahay aan taabtay. soo marka hadda muuqaalka sidaan waay ma fahantay. waxaan rajeynayaa inay la soconaysiin. marka hadda waxaan rabaa inaan reaction baxsho isla KineMaster aan ku bixinayo. haddana marka maanta waxaan si biyoleteen inaan idin sharaxo. soo marka dabcan heestan dhigisanayaa fanaanka heestiisa dhigisanayaa. soo hadhow marka waxaan soo saarayaa geeskan laakiin heesta fanaankaas ma soo qaadanayo
waayo copyright ku xiran. So marka wax ma rabi inaan wax copyright ku xiran idin soo qaado. So marka laakiin waxaan soo qaadanayaa muuqaaladeedii muuqaala kamid ah soo qaadan doonaa haddii Allah subxaanahu wa ta'ala kiraan noqdo. Hadda waxaan rabaa meeshaan inaan ku sameeyo inaan kala jaro edit meesha ugu hooseysa weeyaan speed and meeshaas ugu hooseysa weeyaan dabcan waa kala fogeynaya majida waan isku keenaya oo kala fogeynaa isku keenaa ka dafiiriya ma dareemaysid very simple way ma dareemaysid easy way hadda waa kala dheereena fiiriya ina kala jaro dareen madow soo dhax galay. So marka waa isku keenaysaa labada muuqaal wax weyn maaha ma fahanteen. So marka qof walbana ma aragtay oo muuqaalkan daawado waxaan rajeynayaa ma aragtay inuu isku day sameeyo ma garatay hadda wax soo gelinaya haddana muuqaal kaleeti aan raba inaan soo qaato muuqaalkaas muxuu noqon doonaa talokee waaye keen soo qaataa kana soo qaadanaya laakiin TikTok oo ku qoran yahay. So marka TikTok ku qoran yahay ila meero qurux badno waa ka laabanaya mid kale aan soo qaadanaya loo yaraa ka galay then waxaan soo qaaday isla kii hadda oo aan TikTok ku qornayn. So marka waa kaay kana soo qabsanaa laakiin waxa saaran case copyright. So marka geeskaas aan saaraya hadda eeg marka dabcan heesta inaa maqlaysiin kala ma garanaydana waan xirayaa oo wiilka hadalkiisa sababtoo xiran noqotay copyright ku xiran ma rabay ma aragtay wax copyright wax ku saabsan in la qabsado marka hadana muuqaalka waan joojiyay. So marka rajeenayaa inaa fahmi doontaan ila socdoontii marka kaadkaan rabaa qaybtan dhaxdan tagaya waan jaraa meesha calaamadeyno ma garateen aan u jeedin meesha rabaa in aan taabto dhac muuqaalkii uu iga haray. So marka waxa arkaysiin intaan ka jaray haddana intaas kala giigi waaye marka haddana waxaan soo qaadanayaa muuqaal kale oo asigana ma aragtay aan reaction kaga bixinayay waan jaray oo kala jaray طبعا هنا ujeedin kara waka waan kala jaray. So marka haddana waxaan soo qaadanayaa isla muuqaal kale oo aan rabay inaan ma aragtay asigana reaction ka baxshino ama ka bixinayo. So marka waxaan iska easy waaye qof walba ma aragtay KineMaster soo degsado oo aanan ma aragtay computer haysanin ma aragtay oo aan wax ku jarjaray aqoonin maxaa la yiraahdaa ama computer. So marka qof walba mobile oo haysta iPhone Android Samsung easy very easy ugu jarjaranaysaa kaliya waxa iPhone-ka Samsung-ka adiga aad qanacsantahay la soo qabsanaysaa KineMaster soo degsanaysaa haddii aad wadi bishii $5 iska dhibaysaa haddaadan awoodin ma aragtay dabcan calaamada kor buu ku soo saarayaa KineMaster dhac ma garatay saas ku sameynaysaa saas ku isticmaalaysaa. So marka hadda waxaan raadinayaa muuqaal kale si ma aragtay oo idin kula socodsi ma aragtay u fahantiin inuu easy yahay. So marka waxaan soo qabanayaa muuqaalkaana soo qabanayaa. So dabcan meesha doontaa dhigi kartaa xitaa muuqaalka hoos dhigi kartaa geeskan kala dhigi kartaa kor saari kartaa korkaas kala saari kartaa meesha doontid dhigi kartaa muuqaalka adi reaction ka bixinaysa maaha aan hadda inta iska dhigaa badanaa muuqaaladii halkaasaan dhigaa sababtan tu dhigaan waxay tahay inta geeskan aad jeclahay. So haddii adiga kor aad jeceshahay kor aad geyn kartaa hadda hoos aad jeceshahay hoos aad geyn kartaa muhiim maahana meeshii ma aragtay oo ani bis aan rabo inaan geyso ma fahanteen. So marka waxaan rajeynayaa ma aragtay inaad fahanteen aad faa'iidi doontaan insha Allah bidna alkarim. waxaan ma aragtay waxaan u sameynaa waxay tahay dad badan baa isoo weydiiyeen jaamacow manoo faa'iideyn kartaa KineMaster sidee wax loogu jarjaraa qaabkee wax loogu sameeyaa dad badan baa i weydiiyeen marka aniga waxaan jeclaystay marka maanta in muuqaalkan ma aragtay oo 10 daqiiqo idinku soo koobo. sidoo kale insha Allah bidna alkarim mar kale aan soo qaado doonaa ma aragtay muuqaal kale oo caadi ma aragtay aad ka heli doontaan insha Allah kaas rajeenayaa haddii aad kanaada ku fahmin ma aragtay in ma aragtay kaas si waadax ku fahansiin doon insha Allah. hadda wali qeybihii ugu dambeeyay ku gudi jirnaa tutorialkeena waka marka shaashadana ka dhigaysid marka hafa ka dhigaysid wax dhan saan ku sameeynaa ma fahanteen easy waaye oo tools yar oo leeyahay ma u badna toolskiisa dhan meeshan audio music media meesha qorantahay lawyer meesha qorantahay
afartas meel kasta markaad taawatid waxay kusoo bixinaysaa tools yar meeshasna waxay kugu sii diraysaa meel kale. hadda tusaale camal green backgroundkan waa la ekeysiinayaa codka meesha ku xigta, meesha madowga, meesha cadaan kusii xigta. kadib waxaan taawanaya mataqaanaa naagta dhabarka haysato, kadib calaamada tigta saara, cagaarkii waa baxay. hadda waa aragtaan dabcan waa yareena markaada fiiri markaa yareysid maaragtay khatar buu noqonaya. fiiri dabcan waxaa malaynaysaa in computer lagu sameeyey ama maaragtay software oo lagu sameey dareemeysaa, laakiin very simple waay magaratay. so markaa youtube-ka ka daawatid dadka dhan ma aaminayaan in maaragtay aad mobile ku sameysay ama mobile aad ku edit garaysay, laakiin haddaba waxaa ogaataa mataqaanaa mobilekin waa caadiyan. sidoo kale hadda green screen-kana rabaa inaan ku qoro magacayga instagram-kayga, keliya waxaa qorayaa jaamac space nimbus. so marka magacana dabcan waa iska bedeli kartaa, magaca rabtaa ku bedelan kartaa. meesha sacadan gelinaya color meesha qoranta taabana kalarkaa raba qaadana ama kaa rabti aad soo qaadan kartaa. laakiin in waxaa jeclahay kan koowaad, kan labaad madow, kan ku xigaa jeclahay magaciisa makasaaye, laakiinkaasa badana ay isticmaalaa. so marka fartan waa iska bedeli kartaa, meeshas labada qoranta taabanaysaa, kadib wuxuu kusii gelinayaa meel fara badan ku jiraan ama qoraalo badan ku jiraan. ayo qoraalkaa rabtaa soo qaadanaysaa, dhac kanaa soo qabsanaa. hadda fartasaasay noqonaya. haddana waa iska bedelaa midka kale yareeshaas dooranaya hoos inaan kuga amaleynaya hoos socona hoos meelahan ku jira aaway waa kan kana soo qaadana. farta waxay noqonaysaa yariisay noqonay idin tusaya fahanteen. waa kaa fiiri waa weyneyna hadda fiirsa u fahantaan. waa kaa kadib hadda waa yareena. markaan yareeyo fahmaysan farta far qurux badan aan qaadana, laakiin faraha ugu koreeya soo qaadana ama qoraalka ugu koreeya, sababtoo ah qoraalka ugu koreeya waa ila qatarsan yani. waa kaas soo qaadanaya then sidoo naqanayo waad arki doontiin, laakiin waa inaa yareysaa magaca si maaragtay oo khatar ah. kadib marka meeshaan maaragtay ay imaana oo maaragtay gabadha dhabarka haysato marka la taabanaya green backgroundka gabadha crop meesha qoran tahay gabadha dhabarka haysato easy waay. markaa taabatid greenka dhan baa baxaaya. fiiri hadda tig asaara meeshas cadaanka ah, kadib waa soo jiida hoos usoo jiida, then kadib waa keena cagaarkii iyo wixii iyo dhan waa baxeen mafahantay. so marka waa kaa fiiri waxaa soo dhigayaa hoos soo dhigaa iska easy waay maaragtaan. kadib haddana magaca soo jiida dhac meeshaana keenaya. wareer iyo waxaas dhan ma jiro mafahanteen. adaa umaleynaysa inuu wareer jiro, wareer laakiin ma jiro. easy very easy waay mafahanteen. marka waa kaa magaca halkaasaan geenaya dhac waa la yareynaya magaca yareyn ama weyneyna saaribtay, laakiin waa yareyna hadda si oo meesha ule facaado ama si meesha khatar ula noqdo mafahanteen. so marka waa kaa dhac fiiri iska arag waay mafahanteen. marka hadda fiiri wadinta fiiri halka magac mujada jaamacani bas kaaliska arag waaye shibis kale mafahanteen. marka waxaa waaye warka inaad kusii daaliyo ma rabo, inaad kusii dheereeyo ma rabo. so marka laakiin waxaa rajeynaya insha allah maaragteen inaa wax idin faa'iideeyo. sababta waxay kugu faa'iideynayaan waxay tahay soomaalida badinkooda maaragtay youtube-kayga inay wax soo galshaan ay jecel yihiin. so marka in maaragtay wax faa'iideysataan ama wax la kala faa'iidan ani aad baan u jeclahay. so marka qof kasta oo muuqaalkan daawado fahmi waayo, haddii uu u baahan yahay maaragtay inaan ka caawiyo ama hadduu u baahan yahay maaragtay in maaragtay wax oo editingka dhibaayo uu isoo weydiin karaa oo u sharxayaa si maaragtay oo asigana ii fahmayo. so marka inta ila soo xiriirtay oo u sharaxi waayeen maaragtay xumaan oo ku maasantahay si wacan wanaagsan u dawatay muuqaalkan. waxaan naga xaasdina subscribe aan leedahay markii kugu horeysa ayaa soo booqtay youtube channel-kayga. waxaan ka codsanayaa inaad subscribe dhab noogu siisid, sidoo kaleetana haddii aad ka heshay muuqaalkan ama muuqaalada soo gelinaba commentiga ra'yiga hoos noogu dhiib. haddii aad muuqaalkan la wadaagi karto asxaabtaadana
وانا كما سندسدو عن ونكسنا او داوتي channel كيغا جامع حسين جامع نين بس نين وين مرقع كله thank you very much